Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nooshahay. Dhammaanteed waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda dhammaan waan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Insha Allah bidnillaahi kariim. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda doolarka heerka leh uu ka qaadanayo nabadgelyada Soomaaliya iyo sidii ay Soomaaliya aad iyo aad ugu fariisan lahayd cagaheeda iyo wax kasta oo Soomaaliya haysta siduu uga dulqaadi lahaa ayuu had iyo goor ku jiraa. Insha Allah madaxweyne abaalkaasna waa lagu hayaa, ummadda Soomaaliyeed waa ku haysaa. Insha Allah taariikhda meel fiican ayaa kaga jidhaa, meel aad iyo aad u qaali ayaa kaga jidhaa taariikhda Soomaaliyeed. madaxweyne Soomaaliya madaxweyne kula mid ah maanta ma soo marin xilka ilaa madaxdii isbedbedelaysay. mudane madaxweyne waxaanu leenahay soo noqo, waanu ku leenahay. Insha Allah ducada ummadda Soomaaliyeedna waa arkaysaa, mar walba garabkaaga ayaa la taagan yahay. mudane madaxweyne aad iyo aad baanu kugu mahadnaqaynaa inta aad tanaasushay, inta aad macnaheedu ummadda Soomaaliyeed ka badbaadisay dhibaatooyin ay la soo doonteen dad mucaarada oo cagaha haya ummadda Soomaaliyeed oo raba inay god ku ridaan ayaa ka qabatay. madaxweyne waxaanu ku leenahay guuleyso. madaxweyne dad xun oo aan ku gaari karin baa wax kaa sheegaya. madaxweyne dad burubur ku soo koray oo tuugnimo ku soo koray oo rabaha qalalaasaha inay ka faa'iidaystaan baa jira. mudane madaxweyne dadkanu ma rabaan dadka qaarkiis ma rabaan in dowlad Soomaaliyeed oo la aqoonsan yahay ay dhisanto. mudane madaxweyne waxay doonayaan burburka inay ku qabtaan xilka Soomaaliya, balse maantay hadday dhalato dowlad Soomaaliyeed oo la aqoonsan yahay oo xoog leh, dee waxay noqonaysaa dadkii Soomaaliya wax ka kharibi jiray in la qabto oo qacan xoog leh lagu qabto oo la saaro maxkamad oo qof walba dembigiisa lasoo hordhigo bay noqonaysaa. iyaguna waxay ka cararayaan taa, weligood ma doonayaan dowlad Soomaaliyeed inay dhalato, balse mudane madaxweyne waxaad doonaysaa dowlad Soomaaliyeed inay dhalato. ilaahay baa kula garab qabanaya, ilaahay ha kula garab qabto ayaanu ku leenahay. mudane madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan ku leeyahay guuleyso. 24 saac waan kuu duceeyaa. waxaan ahay anigu wiil reer Puntland ah, gaar ahaan ka soo jeeda Nugaal, waxaana joogaa deegaanka Ceeldoob. had iyo goor waan ku taageeraa. insha Allah bidnillaahi kariim guuleyso 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 waan ku leeyahay. soo noqo oo xilka noo hay oo weligaa ha ka kicin. Siciid Dani iyo Axmed Madoobe waa niman aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed u wareeriyey, u jaah wareeriyey. balse Siciid Dani waxaan leeyahay, Siciid Dani xildhibaan hadal uu sheegay baad ka xanaaqday, qunuud uu ka sheekeeyey xildhibaan baa ka xanaaqday. sidee baad noqon lahayd farmaajo kale haddaad tahay oo mahad salaad 24 saac uu caayayo, 24 saac uu wax ku tuurayo, 24 saac lagu fowdaynayo golaha baarlamaanka? sidee noqon lahayd? hama 8 ka mid ah xildhibaanadu ay mucaarad kugu yihiin, sidee baa noqon lahayd Siciid Cabdulaahi Dani? adaan ku weydiinaya. mahad salaad iyo cidi kama fowdo badna, iyo gabankii hebelkaa filimbi iyo islaantii dabeertahayd oo qaylinaysay, cidi kama fowdo badna. balse adigu waad booyi lahayd hadday kuwaas xildhibaano ku yihiin. daniyow taasaan ku leeyahay. laakiin farmaajo isagoo aan laga dareemin maba xanaaqaba. farmaajo maba xanaaqo, madaxweynaha Soomaaliya ma xanaaqo. waa libaax isku kalsoon, waa sharci yaqaan. dadakan damba kabale qaylqaylinaya waa wow leh, laakiin waxa uu fadhiyaa dad taageersan, dad aqoon leh, dad waxbarashadu waxay tahay yaqaan ayaa u fadhiya. aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan. farmaajo maxaad leedihiin? ha guuleysto. farmaajo guuleyso guuleyso guuleyso. xilka hay xilka hay xilka hay xilka hay. mar walba waa kuu ducaynaa mudane madaxweyne.
aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.